nabadii warsan saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiinba. Waa maxay hanti wadaag ama shuuciyad? waa aragti siyaasiyadeed iyo tu dhaqaale oo soo ifbaxday bilowgii qarnigii 19aad taasoo ka duushay isu dheelitirka bulshada dhanka ka faa'iideysiga wax soo saarka iyo inay dhidibada u aasto nidaam ku dhisan waxa loo yaqaan cadaaladda bulshada, hirgelinta iyo damaanad qaadka barwaaqa sooranka mujtamaca. Nidaamkan ayaa ah mid raadiya horumarinta shucuubta wuxuuna salka ku hayaa la socodka amaba faragelinta dowladda ee arrimaha dhaqaalaha iyo inay dowladdu xadido raasamaalka iyadoo aanay jirin madax bannaani iyo suuq xor ah oo ka maran gacan ku haynta dowladda. Hanti wadaagu waxa uu leeyahay astaan u gaar ah taasoo iyadu ah lahaanshaha dowladda. maadaama hanti wadaagu uu taagan yahay nidaam ka duula sinaanta bulshada ee dhanka dhaqaalaha waxay taasi caqabad ku noqotay koritaanka wax soo saarka gaarka ah. Sidaas awgeedna waxa bulshada laga waayay tartan dhexdeeda ah. Taasina waxa ay dhaawac weyn u geysatay hal-abuurka ganacsi waxaana ay sababtay in dowladdu kaligeed deefto. waxa ay leedahay shuuciyadu dhowr madarasadood oo kala duwan dhammaantoodna waxa ay ka siman yihiin nidaamka dhaqaale la wada leeyahay shaqaale iyo hantiileyba. Sidoo kale dhanka siyaasadda hanti wadaagu waxa uu caan ku yahay keligii talisnimo marka laga reebo qolyaha loo yaqaan garabka bidix ee ku abtirsada hanti wadaaga kaasoo taageera dimuqraadiyadda kana soo horjeeda nidaamka halka xisbi ee dictatoriga. Ragga asaasay nidaamkan dhaqaale ayaa waxaa ka mid ah Karl Marx, Friedrich Engels. burburkii midowgii Sofiyeetka ee 1991 ayaa lagu tilmaamay inay ahayd gabaldhici awoodda hanti wadaaga iyadoo ay weli jiraan dowlado ku abtirsada ama sheegtay inay yihiin hanti wadaag sida Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuba. ma ogtahay daawada in dowladdii dhexe ee burburtay ee Maxamed Siyaad Barre ku dhisnay nidaamka shuuciyadda marna la dhacday midowgii Sofiyeetka ee ahaa awooddii ugu weyneed ee matalaysay nidaamka hanti wadaaga ama shuuciyadda. asani daawada waa diyaarintii Cabdicasiis Axmed Xaashi iyo tabintii Cabdiraxmaan Nuux Xaaji Maxamed.